qof ku tiirsay waxa jira jacaylki qabyobayo nasiibaga darbaajiyo qiimaad ku lahay waa tahay durba waa dareemayaa qaar badan oo adinka idinka mid ah in quluubtiina iyo sidoo kale maskaxaan aada isbedesheen markaa aragteen duruufta iyo sidoo kale dhibaatada ooyinta iyo ilinta gabadhan indhaheeda ka dareeraysa dabcan walaal soomaaliyeed oo ay aamintay nolosheeda ay ku aamintay ayaa qalbi jibiyey dabcan qof qalbi jabay ama jaceyl oo ku dhacay waa dareemi kartaa qofku soo rabo ha aado ama shalmad ama qof kale ha raaco laakiin ma habboona in qof walaasha ah oo ku aamintay la qalbi jibiyo oo sidan loo galo dabcan gabadhan ubax ayaa la yidhaahdaa waa gabar caan ah baraha bulshada sidoo kale jilliinada dadka ugu horeeya qaybka ah magaceeda iyo sidoo kale waxyaabaha hadda ku dhacay ayaan isla dhuuxi doonaa haddii allah awoodalo laga helo laakiin daawada inta ka horeysa muuqaalka sheer dheh laagtu waa muhiim falowda iyo sidoo kale subscribe-kuna dabcan meesha kaba mara aada u mahadsantihiin waxaan leenaha marka hore bal intiina aadka u calool jilicsan isku daya inta muuqaalkan ama gabadhan codkeeda aan ka boganayno biyo dhaca hadalkan aan u gudageli doono in aad caloosha adkaysataan qaar badan oo idinka mid ah waa hubaa in aad ilmey doontaan in aad wax badan qaarkiin oo lasoo xumeeyey in aad goco doontaan mana jecleen in aan dib qalbiyadiinni waxyaaba aad ka soo kabateen aan tusno laakiin walaashan soomaaliyeed ayaan ka ahaa weynay oo la dhibaateeyey marka waxbayna hadal ku daalin saaxiibayaal soo dhawaada muuqaalkan isla dhuuxno inamadan media ku jirno dhammaantood hilmaan hadal kuma jiro gabadhan ubax ayaa la yidhaahdaa barta tiktoka oo bulshadu ay ugu dambeysay ay sida aadka ugu wada xiriiri jirtay muuqaalada gaagaaban ay kusoo gudbi jirtay ayay caan ka tahay hargeysa caasimadda somalilan ayay joogtaa waa mid ka mid a dadka sida aadka loogu xasuusto jilliinka iyo soo bandhigidda ruwaayad xilliga ramadaanka loogu talagalay oo ka socoto telefishinka caalamiga ah ee universal saaxiib walaal qaaliya ayaa soo bandhigay dhibaatadan iyo sidoo kale waxyaabahan ay goconaysana halkan ku waleystay waxaan leenahay cadceed aada u mahadsan yahay wuxuu isku dayayaa inta waraysiga uu socdo gabadha markay cawl xumato in uu dejiyo heese guubaabaa sida heestii nimcaan ee jaceylkii qabyoobay iyo sidoo kale heese kale ayuu ku mudadaalinaa si uu maskaxdeeda dib ugu soo celiyo dabcan qof kasta oo wax ka yaqaana cilmi nafsiga iyo sidoo kale dadka inay u sheegaan waxyaabahana dabcan ka waani karana walaasheen ubax waxaan leenahay in uu la xiriiro oo qalbiga loo dejiyo loo sheekeeyo qofku markuu dhibaato soo arko aad ay xun tahay marka waxaan rabnaa bal biyo dhaca in aan ka daba tagno oon ubax idinkala dhex baxo isla daawano anigoo ku aaminay una kaa istaahilo adiga agteedii agjoogayga diiday orodaya nasiibka anigana ayaankay kula joogo aan oran karaa kii cilmi boodhari micnaha la odhan lahaa malaa waa dhigiis ama waa kii micnaha lagu bedeli lahaa hadduuba nahaya badan muriyaa haystay isweydiin jirnay wala in badan waan micnaha dad badan way ii weydiiyeen xiriirkaasoo jira inaa micnaha waraysi ka bixino anagoo kaa bala laakiin nooma suurtagelin maanta anigoo alloona inaan calaashaan ka waramo xanuunkeeda halahaata laga qaato waxa weeyaan waxaa jirtay wiil hadda ka hor aan ahayn walaalo saaxiibo calaashaan markaan kuleeya walaalaan ahayn maanu wada dhalan laakiin walaalihii of course kuwii wada dhasho kale booskii walaalkii ila dhasho kale iigu jiray saaxiibkaybuu ahaa dadka badanka aadka isugu dhowdhowna waxaa la idhaahdaa waa dadka xidhiidhka marka isfahmaan labada qof ay xidhiidh sameeyaan marka waagii hore asxaabbana walaaltanaan waxaa 17 May 2023 waxaa bilownay xidhiidh isagana ku horeeyay xidhiidhkii uu soo hana qaaday heer wuxuu gaadhay xataa faamilkiisa ay ogaadeen wiilka wuxuu kasoo jeeda faamil aad u wanaagsan maasha allah tabarakallah oo helidiina calashan waxaan odhan karaa hooyadii xataas xidhiidhkayga way ogey
madiga ku walaalihii jacaylka kadaali mise isiga ku wareey isagaa ku barray anuna aqlaadan lahaa halkaad ku barateen hargeysa hooyga fanka iyo de jacaylkaan odhan karaa berigoor waxaa odhan jiray berbera hooyga jacaylka hargeysaan odhan karaa aniga waa hooyga jacaylka markaas waxaa dhacday jacaylkii adigu wuxuu soo hanaq ado soo jiro sanad buu ku dhowya iminka horta ma jecelina qofkiian shalay wanaagga u hayay micnaha ahaa weelkayga walaalkay saaxiibkay micnaha xoghayaha sirahayga iyo waxyaabahayga khaaska inaan wax xun ka gudbiyo mana istaahilo runaanti markastana waxaan rajeynayaa wax wanaagsan saasay tahay haddana qofkii heerka isla soo gaadhnay xataa a isla rajeynaynin nooga qurux badan micnaha haddasaan nolosha ugu midownaynan mid kasii qurux badan rajeysan guri yar reer samaysaan dabcan kolley waxaa nolosha loo wada ordaa guri negiyo taag buuri daawacyadiisuna horta jacaylku markay tahay jacaylka aad buu xanuun badan uu dhib badan yahay hurdo waad isdeynaysaan farxada waad isdeynaysaan in yar waad farxsanaan in yar waad murugsanaan anuguna waxaan ahay dadka yaabaha aadka ugu hinaasaha badan oo jacaylkana waxaa la dhahdaa jacaylka dhabtana hinaasuhu waaba dee calaashaan maxaa la dhahay udubdhexaad qofka qofka ku tiirsanyahay waxaa jira si jiro waxaa jira wiilal fara badan oo midhiyahay ku jira inamadan midhiya ku wada jirno dhammaantood si jiro maaha in labada qof laysku arka ama fiidiyo wada duuba ama wax wada jila inay wax ka dhexeeyaan soomaalidu waxay taqaanaa ma aqaano qaadiyaasha dadka isku meheriya isku dhisa isjeclaysiya halkay ku kala nool yihiin iyo diintay haystaan dad walaaladiiyo aniga noloshaydan odhan kara waa haliyeyayaal iga dambeeyaan micnaha hadafkayga iga fikira oo inaan meel nolosha heer gaadho doonaya oon calaashaan ii arkaya walaashood ka yar ama leeg ama calaashaan anyway marnaba aan u qalmino dee qofkan walaalaan nahay waxaan ogeyn inaan isgeyn ayaa lagu odhanayaa hebel kale haa markaas waxbaa ka dhexee eeg waxaa isweydiin mudan dadkii midhiga ku wada jiraan okay kaba soo qaad iminka waa cadceed waad hor fadhidaa maa haddana inaga labadiina laga yaabo lasukan arkina fidhiyo dubna wax loodhan xidhi bay leeyihin okay hayaad qiisana oo dhahi karo calaasha waxaasa sameeyey ma jirto maadaama nahay gabadh nolosheeda ayadu hirarta nolosha kala duwan ayadu keligeed la dagaalamaysa micnaha jilaanimo miinan fanka soomaaliyeed qayb ka ahaadana uu hamigayga ahaa ferstigii hamigayga koobaad wuxuu ahaa weriye inaan noqdo saxafi anigoon baranin ayaan maanta saxaafad calaashan wuxun baanan odhan karin kamarad baana dubka dhatan baana qaban karin laakiin wax kastuu weriye qabtaan qaban karaa because waxay ahayd hibadeyda haldoor micnaha qof wuxuu kadhig micnaha howlbadar gabdhaas tv-ga daawan jira waan yaran hoos fadhiisan jiray barnaamij ay leedahay waxay iimu dhaaf jiray saa darteed waxaan jeclaaday saxaafadda midhiya adigu halkaasaan kasoo jeclaaday saxaafadda haddana markaan anigu saxaafaddan arkay inaan ka shaqayn karo tv badan waan maray qofku markaanu weji lahayn amaana caan lahayn amaan la garanahayn caqabado badan bay la kulmaan habluhu gaar ahaan oo waxaa laga yaabaa inta barnaamij waxaan garanaya tv ma rabo inaan magaciisa sheego anigoo calaashaan hamigii uu igu jiro anigu igu jira hamigii inaan noqdo dee micnaha saxafiyad bs dabcan waa dareenteen gabadhan duruufo badan ayaa isu biirsaday mid waa ninkii aamintay jaceylka intaa la waday muddo badan ay kolkoolinaysay oo dhowr mar isku dayay inuu ka baxsado ugu dambeyntiina lugta furo oo ka tegay iyo iyadoo waxyaabihii ay jecleed hamigeedu ahaay sida saxaafadda inay kusoo biirto iyana lagu ciilay fankana sidoo kale hami ay ka leedahay waxaan leenahay marka qof kasta iyo saaxiibada ku sugan hargeysa iyo somalilan inay gabadhaasi gacan qabtaan dabcan dad badan oo waxyaabaha badan ay goconaysana ka tiri kara ama moogeysiin karana waa masti inay hesho marka waxaan leenahay sorry
dhammaan duruuftu way wada jirtaa dad badan ayaa laga yaabaa inay kaa daran yihiin dad badan ayaa laga yaabaa inay wadada kusoo jiraan marka waxaan leenahay qof kasta oo la xumeeyey raalli noqo sorry saaxiibayaal muuqaalka intaas ayaan jeclaystay in aan kusoo koobo uu dheeryahay 40 iyo dhowr daqiiqo waaye saaxiibkan cadceedna waxaan leenahay aad u mahadsantahay